waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed asxaabta igu xiran iyo tiimkayga dhamaantooda waxaan leeyahay oo aan jeclaystay inaan ka jawaabo ana markaan rabaan jawaabaa markaan rabno ma jawaabaa waxaan jeclaystay inaan ka jawaabo aniga khamri inta soo qaaday dadka ma soo hordhigin maxaa la yiraahdaa khamrina afkayga kama soo bixin anoo ku heesayo wax walba la lacabaa mideeda kaleeto qofka qalad u fahmaan waxba igama galin hadaa qalad u fahantaan qofna isku soo duubmaana dhihin waan soo heesay kartida aan ku soo heesay xanaan ku soo heesaan igu jiro ana diintana uma aan gafin dadna ma aan caayin laakiin dadka jaaniska raadinayo kurti waxaan taagnahay habeenii maana idin kurti waxa dadka jaanis raadiska oo dhan kurti ana idin waa in ka dulbaxa waa in ka galaa dhan walba in ka maraa feela in saaraa xataa waxna kama bedeli kartaan waa in salaam sida carada leh oo ugu jawaabay ama jawaabta uu ka bixiyay ee dhanka social media ayaantii dambe ama waayihii dambe ee lagu soo fanaankaas oo lagu karbaashayay ama ay dadka badanaa ee bulshada Soomaaliyeed ee ku wada heesteen heestii oo soo qaaday heestaas oo ahayd dadyo aad u fara badan ee jaanjo kala duwan ee ka sameeyeen heestaasna waa heestii oo dhankaas iyo qamriga oo ahaan ay ku socotay waana heestan oo fanaan kale ama fanaan ajaanib ah oo ku soo shacbahay ama fanaan ajaanib oo hore ugu soo heesay fanaankaas ajaanibta uu ku heesay ayaa heestaas ay u kala kacday ama bulsho aad u fara badan oo dhanka TikTok oo jaanjo aad u fara badan ka sameeyay si ay markaas iyadana heesta ay u kala kacdo ama views aad u fara badan ama dhaqaale aad u fara badan ay u sameeyso laakiin heestii waxa luqad ahaan ama turjum ahaan ama heestii ku soo luqeeyay financial boy oo isaga ahaan dhankiis iyo soo qaaday heestii markii uu soo qaaday bulshada Soomaaliyeed ama jaanjiyad ay ka wada bixiyeen dhalinyaradii ay dhankaas iyo TikTok bulsho aad u fara badan markaas waxay dhaleen aad u fara badan ay u geysteen ama aad u dhaleeceeyeen fanaankan in uu soo qaado hees jasta ahaan dhankaas iyo diimaha ama dhanka iyo diinta aan aad jasta ahaan u wanaagsaneen dadyo aad u fara badan hadal ama dhalinyaro u badan oo dhalinyarada badana TikTok isticmaasha ama waayihii dambe ku soo shacbahayeen in ay ka sameeyaan jaanjiyadii marka bulshada Soomaaliyeed waxay aad ugu xumaadeen ama dhalinyaradii ay qaarkooda ay ka wada xumaadeen ama qaarkoodaba sida iyakana ay jaanjiyadii ay ugu soo sameeyeen marka waxa la dhihi karaa isaga ahaan marka uu jawaabta bixiyay ama ahaan in uu ka dambeeyeen arimahaas in dadka bulshada Soomaaliyeed ay dhaleeceeyaan ama ay noqoto heestiisa ugu horeysay oo dhaleeceen aad u fara badan la kulanta isagana wuxuu aad u dhaleeceynaya ama ugu soo horjeedaa in ay ka dambeeyaan arintan ama ay dadyo isaga ahaan horumarkiisa ka xun ama noloshiisa ahaan horumarka uu sameeyay dhanka iyo fankiisa ka xun in ay arintan ka dambeeyaan ama ay bulshada Soomaaliyeed iyaga ahaan ay